qofka la rabaa inuu isbedelka dhabta ah keeno waa adigu haddaa keeni weyse cid kale oo kuu keenaysa ma jirto horumarka dalka ama bulshadana waxaa laga fiiriyaa jiilkeeda markaas taagan sida uu habdhaqankiisu yahay sida ay yadadiilada mustaqbalku tahay dadka naga sareeyaa in mar walba waxa ay dejiyaan waxa ay noo diyaariyaan wadadaan anagu bari mari lahayn wadada jiilka dambe ee inagu wareejin lahaayeen dhan walba dhaqaalo dhaxal siyaasad dhinac walba noqon lahayd haddaba wadadaas ma noo muuqataa ma noo jihaysan tahay waa maya haddaba marka anaga waxaana saaran laba waajib oo aan dhalinyarada kala saarnayn oo anagu wadadayna samaysano wanaagiina anagu aan la nimaano kuwa naga dambeeya si aan haddaba dhaxal wanaagsan uga tagno laakiin dhinaca kale farxadi way muuqataayo waxaanoo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo qaybo kala duwan ee dalka iyagu maalin walba ka hadlaya dhibaatooyin kala duwan ka hadlaya qabyaladan ka hadalno dhalinyaro beeraha ka hadasha dhalinyaro kala caafimaadkii u ololeysa dhalinyaro waxbarashada u ololeysa intaasna waxay ku rajo gelinaysaa inuu dhalinyaradu isbedel ka soo socdo